naxdin leh fanaanka caanka ah ee Omar Barbar ayaa waxaa ku soo booday xanuun xagga dhimirka ah. Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in la sixray fanaankani. Fanaankan oo ku sugan wadanka markaasi Norway ayaa wararka qaar waxay sheegayaan in fanaankan loo adeegsaday sixir aad u weyn. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dhacdadan. kuwa kale ayaa waxay sheegayaan in gabadh ay sixirtay fanaankan muuqaal naxdin badan ayuu iska soo duubay. waxa uu sheegay haddii aan laga dayn qalitaanka sidoo kale dhakhaatiirta la geynayba in uu isdhaafin doono nolosha. waa sida uu isagu sheegay. haddaba waxaa jirtay muuqaalo uu soo duubay saacadii ugu dambeeyay live ayuu markaasi TikTok ka soo galay, waxaana daawanayay ku dhawaad dad lagu qiyaasay 40,000 ilaa 70,000 oo ruux. dad fara badan ayaa muuqaalkaasi daawanayay. dadyo fara badan ayaana isu sheer gareeyay. haddii aadan muuqaalka hore u daawan aan ku daawadsiiyo والله وين دالي داية واي سو ويرتين si kasta ay soo weerarteen wataas ayaa guriga ku noqoyna adeer guriga ku noqonaya hadaa rabtaan guriga inaan ku noqdo hay clown garaynin aniga waa ii clown garaynaysaa haye waa isdaji meel fariiso horta kursi fariiso in adeer kursi fariiso waa ku baryayaaye quraan akhriso a'uudu billahi minash shaytaani rajiim ina boon waa clown annaga la leeyna boonay kulli anaga warlayska iduuba wareer mahado iduuba محمد عبد القادر بالله الله يا غير نور بالله الله يا عمر هلا كحيو war maxamed cabdi qaadir waa juudaan waa dadkan ka hadlaya weeye war awoodiina waa qiray war dadka hortoodan ku qiray awoodiina war idaaya war iga qaleeya war waa daalay war wallahi waa daalay saxan baan u daalay war iga qaleeya war hay dilina war inay dishaan bartaan war inay dishaan baad rabtaan war aniga inay dishaan baad rabtaan ay kalon garaysaan oo maskaxda intaad saas u furtaan qof kale gelisaan maskaxdayda rabtaan aniga maskaxdayda rabtaan inaad qof kale gelisaan ha waxaad dhahaysaan depression buu qabaa daawooyin baad igu duraysaan marka ay durtaanna sida jooqle qof kasto wax fahma very sad qofna ma caawin karo. My people, nobody can help me. Nobody. Only Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ورولي البوليس يوعى. وروحان جوجا ميرشان جوجا صودق يا ايوه اي مثل اللي انا ادي لايف كان كبح ايوه كبح عمر اللي يدلال الرباه وحا سو غاري انا اللي سو تريست اللي يدلال الرباه ما عمر اللي يدلال بليس إن هذا ربط الله يفك كبح عود بليس وما يلفريسو fanaankan ilaa hadda ma cadda sababta ugu weyn ee dhibaatadan u soo gaadhay. waxaa jira in fanaankan oo sanadihii ugu dambeeyay si weyn caan u noqday. waxaa jirta in heestii uu markii ugu horreysay caanka ku soo noqday ee Barbar, taas oo magaciisa qudhiis la yiraahdo Umar Barbar. fanaankan waa fanaan ka soo jeeda deegaanada Puntland, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. qabaylahan wuxuu ka soo jeedaa beesha Majeerteen. haddaba fanaankan ayaa si weyn baraha bulshada u haysta saacadihii ugu dambeeyay, isagoo wejigiisa ay ka muuqato diif weyn iyo sidoo kale xaalad halis ah inuu ku jiro. haddaba wixii ka soo kordha si aan idinla socodsiino, waxaan idinka codsanahay inaad muuqaalkan nala sheer garaysaan oo aad si aad dhacdooyinka dambe ula socotaan YouTube-ka Hogal News. subscribe noo saartaan, halkan ayaan dib soo gelin doonaa.